subax wanaagsan oo wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii subaxnimo ee ficil iyo faaqidaada aad uga barateen telefishinka Raadsan waa subaxnimo Arbaca 8 bisha December 2021 maxaa hadaba ka cusub dalka gudihiisa iyo dibadiisaba saaka koobkii shaaha biyo la igu sii bedelay baa filaya waa u jeeda miiska la ima sii saarin aan ku bilaabay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari isimada dhaqanka Puntland oo berihii u dambeeyay ku sugnaa una joogay xalinta khilaafaadka ka dhex taagan agaasimihii hore ee BSF iyo madaxweyne Deni ayaa waxay xalay toole soo saareen go'aamo cusub qodobada ay soo saareen isimada dhaqanka Puntland waxa koow ka ah inay dhaqan gasho xilka qaadistii madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu ku sameeyay agaasimihii hore ee BSF loona magacaabo xilkaas lagu wareejiyo aan dhahe agaasimihii uu magacaabay madaxweynuhu qodobka labaad ayaa sidoo kale wuxuu yahay in guryaha gawaarida iyo saanada mulkiyadiisa uu leeyahay agaasimihii hore ee BSF Maxamed Cismaan Diyaano qodobka saddexaad ayaa ah xuquuqdii ka maqneed ciidamada BSF 13 bilood ee la soo dhaafayna inay bixiso dawladda Puntland sidoo kale qodobka afraad ayaa waxa lagu xukumay dawladda Puntland inay bixiso qarashka ku baxaya ilaalada agaasimihii hore ee BSF Maxamed Cismaan Diyaano oo ah nin dalka u soo halgamay sida ay sheegeen hadaba muxuu wareejin doonaa agaasimihii hore ee BSF maadaama hubkii guryihii iyo gaadiidkiiba isaga la siiyay muxuu ku shaqayn doonaa agaasimaha cusub ee haatan loo magacaabay dhammaan su'aalahaas waxaan uga tagayaa daawadayaasha haatan aynu Puntland uga digarogano Galmudug hore ma u maqashay hebel wuxuu gaaray waqtigii baakoorada waa heerka ugu dambeeya ee nolosha waqtiga la qaato baakoorada hadaba saaka tiimid ka duwan ayaan idin hayaa hadaba deegaamada Galmudug waxa caan ka noqotay ul baakoorad ah oo ka duwan kuwii hore looga qaadan jiray dalka baakoorada tan oo lagu sameeyo dalka Pakistan ayaa waxa hore u sitay madaxweynaha Galmudug iyo mas'uuliyiinta sarsare ee Galmudug haatan se waxa wada qaatay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer Galmudug hadii lagugu arko baakoorada tan markaba waxa lagugu tirinayaa inaad tahay reer Galmudug hadii aad tagtidna hadiyad ahaan baaba lagu siinaya dadka reer Galmudug ayaa u shan wada qaatay kadib safarkii heshiisiinta madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu ku tagay magaalada Dhuusamareeb waxaana kor u kacay sicirka la siisanayay u shatan iyadoona laga waayay qaar kamida meheradihii lagu iibinayay hadaba waa kuwan qaar kamida dhalinyarada aqoonyahanka reer Galmudug oo ka hadlaya bal u shatan iyo sida ay u soo caan baxday ushan waxa looga yaqaanaa deegaanada Galmudug ushan nabadda Galmudug waxa wata mas'uuliyiinta xilalka kala duwan ka haya dawlad goboleedka Galmudug oo ugu horeeyay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor sidoo kale waxa ushan wata mas'uuliyiinta xilka ka raadinaya deegaanada Galmudug ama deegaan doorashadoodu ay tahay Galmudug ushan waxay ka turjumaysaa marka koowaad inaad tahay reer Galmudug talabaad waxay ka turjumaysaa nabadda Galmudug waxa qaata rag odayaasha Galmudug kadib madaxweynaha Galmudug safarkeena wadaynta ahay ala wada qaato ushan marka waxay ka turjumaysaa in Galmudug dadkii nabadooda qaateen sida darteeda loo wada wataa marka madaxweynaha dawladda Galmudug ayaa hadda ka hormayantii safarka nabadda qaatay dadka ma wada qaatay waxay macnaheedu noo sameynaysaa waxa kamid ah muxuu ahaa ushan marka wadato waxa ka shaqeynaysaa waa dadka nabadda jecelaad madaxtooyada Galmudug marka rabto inay aado ushaas oo kale waxa arkaysaa iyadoo meel dhow idida magaalada meesha laga galo madaxtooyada xafiiska madaxweynaha agta dadka laga dhigaa marka qof kasta markuu madaxtooyada aaday qorqor isteelkaas hore qaata si loo fahmo inuu yahay nin qorqoraysa dabcan ushan xaragan isaga wataa laakiin dadka markii aan weydiiyay oo Dhuusamareeb imaaday laba micno iigu sheegeen laba magac ushan nabadana way dhaheen qorqor isteelna way iigu sheegeen marka qof walba oo magaaladani inta ugu badan way wataan
waa tahay haddaynu intaas kaga soo noqono warbixinta ushaas caanka ka noqotay galmudug waxaba ay hayse galmudug ma aadaaye aan ku sii soconay qaybaha kale ee barnaamijka gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi ayaa ku baaqay in la joojiyo 16 kursi oo kamid ah kuraasta Soomaaliland oo doorashadoodii lagu qabtay magaalada Muqdisho kadib markii loo mari waayay hanaankii iyo habraacii lagu heshiiyay gudoomiyaha ayaa sheegay inaan la shaacin karin tartanka kuraasta ilaa xal laga gaarayo khilaafka ka taagan kuraasta Soomaaliland oo uu sheegay in sharciga lagu heshiiyay la baalmaray bal marka kana Kenya askari ka tirsan ciidamada booliska Kenya ayaa waxa uu dilay 6 ruux oo ay ku jirto xaaskiisu waa arin cajiiba arinta tan oo ka dhacday caasimada dalka Kenya ee Nairobi waa kan wariyahena Abbas Hussein Muuse oo inoo si amba qaadaya askari ka tirsan booliska Kenya ayaa toogasho ku dilay 5 qof oo ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimada wadanka Kenya kahor inta uusan isdilin sida ay sheegeen hay'adda dambi baarista ee DCI askariga ayaa markii hore toogtay xaaskiisa oo ku sugnayd gurigeeda kahor inta uusan qoriga AK-47 uusan ula dhaqaaqin 4 qof oo kale sida hay'adda dambi baaristu ay ku sheegtay war ay ku baahisay boggeeda Twitterka waxaana intaasi ku dartay in askariga uu ahaa sargaal qaa'in ah sida ay hadalka u dhigeen saraakiisha booliska Kenya kadib markii uu dilay 3 qof ayuu askariga qorigiisa ula jeestay 2 nin oo kale oo mooto watay kuwaas oo mid kamid ah uu geeriyooday intii lala tacaalaya xaaladiisa ayuu yiri booliska Francisco oo kamid ah saraakiisha booliska ee magaalada Nairobi ee wadanka Kenya ayaa xaqiijiyay in dhacdadan ay dhacday isla markaana lagu dilay ilaa 6 ruux warbixin uu soo saaray booliska ayaa sidoo kale lagu sheegay in tirada dhimashadu ay gaarayso 6 qof dad careysan oo ka agdhawaa halka uu falku ka dhacay oo markii dambe dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan ayaa waxa taayiro ay ku gubeen wadada sidaasna waxa sheegay goobjooga ku sugnaa goobta oo la hadlay wakaalada wararka ee Reuters Abbas Hussein Muuse Radsan TV Muqdisho waa tahay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii subaxnimo oo idin soo jeedinayay anigoo ficil burkud dhiidhiya tan iyo intaynu barnaamij la mid ah ku kulmayno waa ficil oo idin leh qof walba muraadkiisa macsi lahayn midigta Allah ka siiyo subax wacan wanaagsan baan idin leeyahay